وهاك صاحب يال كان هو فيديو جن الصدحات فيديوهدي تحناها أن أديك دوني إن أكون فهمسيه فوركس تريدين يسيدا لوغا شقيستو طبعا فيديو كواد waxaan ku soo falanqeynay waxa uu forex trading yahay min bil ilaa dhamaad asaasiyaadkiisa fideogii labaad waxaan ku soo falanqeynay waxa la market analyze iyo sida suuqa loo akhriyo suuqa laba akhrin buu leeyahay laba analyze midna waxa la fundamental analyze waa lacag aad maanta iska ilaalinaysid in aan lacagtaas maanta trade ku gelin ama dollar bay noqon karaa ama euro noqon karaa suuqa meesha ay kaga jiraan inaad ka carartid lacagtaas maxaa saameyn ku yeelanaya wadanka lacagta laga leeyahay wax ka dhacaya website-ka laga fiiriyo news-ka wadamadaas maanta ka soo baxayna waa ku tusay si website-ka loo qorxisto si loo hagaajisto intaba kadib waxaynu niman technical analysis oo ah suuqa farsamo adiga kugu xiran inaad supportiga iyo resistancy-ga iyo trendiga inaad ogaatid suuqan ma uptrend ba oo ma kor buu socdaa mise waa down trend oo hoos buu socdaa kadib markaad trendiga ogaatid oo aad fiirisid wax la yiraahdo saacadahaaga kadibna waxa ku qasbantaa inaad support iyo resistance maxaa ku falaysaa waa inaad ogaato suuqu meesha ugu hooseysay uu ku dhacay si aad kor ugu raacdid ama inaad ogaato suuqa meesha ugu sarreysay uu ku dhacay si aad hoos ugu raacdid sababtoo ah forex trading laba principle baa ka jira ka koowaad maxaa la dhahaa waa buy market kan labaadna waa sell market haddii aad suuqa ku jirid ama buy baa ku jirtaa ama sell baa ku jirtaa buy iyo sell inaad gashid maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay suuqa meesha waa hadda maraya suuqa meesha hadda maraysa ku ogaanaysaa supportigaaga iyo resistancegaaga inaad samirtid kadibna inaad taqaana peak waa maxay lot size waa maxay candle waa maxay candle sticks maxaa laga wadaa ka wadaa waxaa la yidhaha support iyo resistance waxaa la yidhaha trend muxuu yahay time frame muxuu intaas oo dhan waxaan kusoo sharaxnay videogii midkan ka horreeyay iyo sida suuqa loo galo long position iyo short position take profit iyo stop loss kuma dheeraan technical analysis-ka because saacaday qaadan kartaa waxaan ugu talagalay markii kuugu horreysay waxaan aad aragtid inaad sawir kugu filan ka heshid si ay qayb uga qaadato go'aankii aad waxaan ku bilowday inuu ahaa go'aan saxan deetana aad ugu baraarugtid inaa waxaan aad waqti gelisid marka forex trading qofkii doonaya inuu professional ka dhigto qofkii doonaya inuu fursadan xortaa ee dunida daafeeda meel kastuu jooga ka shaqeynaysa doonaya inuu ka shaqaysto saddex xeelood baa laga maarmaana inuu yaqaano qofkaas ama uu leeyahay ta koowaad waa maxay waa xirfad waa skill waa inaad boqolkiiba boqol aad taqaanid waxa aad samaynaysid which means inaad waxbarasho ku khasban tahay haddii aad tiraahdo maanta baabuur baan wadayaa sida loo baabuur baan soo gadanayaa mana aqaani sida loo wado macquul maaha haddaad tiraahdo ka war maanta barcelona waxaan u ciyaarayaa kubadda cagto messi iyo waxaan rabaa inaan garoonka la galo suarez iyo haddana waxa weeye sanadkii 2 jeer kaliya training sameynaya seasonka dhanna waxaan rabaa inaan dheelo macquul maaha ka hor haddaad diyaarad soo gadatid gurigaaga tiraahdo gurigayga hawada ka sareysan diyaaraddan ku wadanaya markaan rabo ama markaan firaaqo leeyahay macquul maaha marka forexna sidaas la mida macquul maaha intaad tiraahdo forex baan soo gelayaa inaad tiraahdo okay 25 daqiiqan break haystaa waa fiirfiirinaya maanta niyo firaaqa iska caajis baa forex toon fiirfiirinaya saas maaha waa in aad xirfad la timaadid xirfadda maxaa kaa xiga inaad wax baratid maanta waxaa joognaa waqti casriya oo click internetka aasaysid warbixin walba kaa xigto waxaa jira boqolaal company oo waxaan kaa saacidaya marka si aad waxaan aad guul uga gaartid waxaa ku khasban tahay inaad haysatid platform wax ku bartaa shayga labaad saddexdiisa aan iraahdo waa u baahan tahay kan labaad waxaa la yidhahdaa consistency oo ah wixii inaad joogtaysid forex trading waxaan ku yidhi waa maalintii ganacsi laga sameeyo 5.3 trilyan oo dollar ganacsiga intaa leeg haddaa ka qatan tahay ka war adoo $100 ku bilaabi karaya ka yar inaad broker ku shubato haddaa ka qatan tahay ka war waxa ka xiga waa maxay joogtayn practice joogtayn oo consistency shayga saddexaad ugu muhiimsanna waa discipline iyo inaad emotionskaaga aad xakamaysid oo discipline garaysid maxay u baahan yihiin inaadan suuqa ku waalan inaadan hurdo la'aan kugu ridin inaadan ku wareerin inaadan ku saaqidin inaadan reerkii iyo noloshii iyo adduunka kale aad ku ilaawin oo aad isku dheelitirtid marka oo aadan marka waxa weeye ku khasaartinna aadan ooyin marka ku faa'iidinna aadan kibrin oo waxa weeye aad cirka isla gelin waxaa u baahan tahay co-skill laba consistency joogtayn saddexna discipline intaa marka laga yimaado si aad businesskan ugu guulaystid waxaa lagama maarmaan ah inaad haysatid platform aad qayb ka tahay si aan platformkaas ama midka anigu aan qaybta ka ahay baan idinla wadaago aan videogeena saddexaad ku akhrino waxa la yiraahdo waxa ay tahay IML mar labaad waxaan idinku soo dhaweynayaa forex trading oo markaan ay la socoto IML waxay tahay gadaal baa ka ogaan doonaa inta aynu gelin IML iyo waxa ay tahay aan hal mar soo dulmarno forex wuxuu u taagnaa the word forex wuxuu u taagnaa baan niri foreign exchange u taagnaa taasi micnaheedu tahay forex market inuu yahay the largest financial industry in the whole planet Earth taasoo ay ka dhigan tahay in maalintii laga sameeyo 5.3 trilyan oo dollar suuqu wuxuu furan yahay 24 saac 5 maalmood ee asbuuca suuqan maxaan qabanaa shaqada dhanaa noo taala waa maxay lacag baan lacag ku bedelnaa annagoo maxay kala bedelaynaa cash ma aragnaya
currencies lacagta dollarku maanta waxay joogtaa qiimo inta leeg lacagta euradu waxay joogtaa qiimo inta leeg labada rate adoo kala bedelaya wax faa'iideysa marka forex trading there's only two options waa buy and sell maxaan sameynaa marka tradeska baan buy ku galnaa ama sell ku galnaa inagoo maxaa isticmaalanaa mobilkeena kaliya qof walba maanta mobil waa haystaa adduunka jooga marka saa u go'aansatid inaad buy gashid ama inaad sell gashid maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay to make a better decision you need an analyze so analysis baa u baahan tahay saa analysis u baahan tahay waxaa u baahan tahay IML marka waa maxay IML waa qaybta aan videoga ugu talagalay inaan kugu fahamsiiyo IML waa company la yiraahdo iMarkets Life oo ah mid ka mid ah kambaniyada dunida ugu waaweyn iMarkets Life muxuu yahay marka iMarkets Life waa company the largest forex trading company in the world way ama waa company ugu weyn dunida ee maanta forex trading ku lug leh ama ka shaqeeya okay maxaa IML ugu baahan tahay IML waxa ugu baahan tahay gadaal baan kaaga sheegi doonaa balse ayada aan ku wada warkeen IML waxaa la helay 2013 baa la asaasay waxa asaasay Christopher Terry oo ah afarta qof ee hortiina ka muuqda qofka geeska u xiga Christopher Terry wuxuu haystaa wax ka badan 25 sano oo khibradda forex trading-ka waa dad yogi hatchers speculators ka aan ku soo sheegay market predictors ka millions of dollars maalin walba sameyn jiray qofka ku xiga Isis Delatorre baa la dhahaa xaaskiisa labadanna waa leaderska madaxweyne ku xigeeyaasha midna waxa la Alex Morton midna waxa la Ivan Tapia midna Europe qaabilsay midna Latin America afarta qof waa waxa weeye waa dadka company-gan asaasay company waa company private oo Mareykanka laga leeyahay IML intee dalbe maanta ka shaqeysaa waxay ka shaqeysaa wax ka badan 120 dal xasuusnow forex trading waxaan ku yiri adduunka meel kasto aad joogto waa sameyn kartaa balse IML iyadu waxay ka shaqeysaa 120 dal wax kala duwan yihiin oo ku sheegaya IML marka waxay haysaa the biggest forex trading education available today wax barashada ugu weyn ee ugu ballaaran ee suurtagalka ah ee maanta qof uu heli karo ee ku saabsan forex waxa haysa company la yiraahdo IML maxaa marka hadda ku yiri saa forex trading guuluga gaartid waxa u baahan tahay amina buur tahay amina buur ku tiirsan tahay hadaa adigu qof khatar tahay waxaan dhameeyay waxa weeye 10 sano ku soo dhex jira hadaa tahay IML uma baahnid haddii aadan ahayn waa in qof waxa soo dhameeyay aad ku tiirsan tahay IML maxaa kale ku haysaa IML TV waxa la ku haysaa oo ay joogaan wax ka badan 60 qof oo dhammaantood millions ka sameeya forex trading maalin kasta iyo sanad kasta iyo bil kasta maanta haddii aad doonaysid waxa la yiraahdo inaad shay baratid ama aad khatar ku noqoto shaygaas waa inaad ka waraysid qofka waxa la yiraahdo shaygaas ugu fiican haddii aad doonaysid inaad gymta aadid oo murqaha dhistid masaaxiibkaaga ciilan baa ka waraysanaysaa mise saaxiibkaaga waxa ka waraysanaysaa waxa la yiraahdo gymta maalin kasta haddii aad maanta doonaysid inaad xaaslo noqotid ama aad doonaysid inaad nin guursatay gabar tahay ma waxa ka waraysanaysaa saaxiibkaaga single-ka mise saaxiibkaaga qoys kale saaxiibkaaga qoys kale baa tala weydiisanaysaa haddaad doonaysid maanta inaad waxa weeye aad baratid baabuurka si loo wado saaxiibka aan baaskiil wada aqoon baa ka waraysanaysaa mise saaxiibkaaga baabuurka wada yaqaana the same thing IML TV waxay ku haysaa wax ka badan 60 qof oo dhammaantood 10 sano 5 sano 12 sano ku dhex jiray forex trading oo adiga kula sameynaya subax walba si live ah galab walba si live ah habeen walba si live ah analyze-kii hadda aan ka soo sheekeynay supporting halka dhig resistance-ga halka dhig forex factory-ga kula tagaya ku sheegaya suuqa gelista leh iyo suuqa aan gelista lahayn waa gartay IML surfaces alone can help you make money immediately wax suuqa loo bilaabayo waa inaad lacag samayso sax I don't know in qofku wax kale u bilaabay laakiin anu suuqa waxaan ku biiray inaan lacag sameeyo sax haddaad suuqa ugu biirtay inaad lacag samaysid waxa u baahan tahay surface hadda waxaan ku tusay platform la yiraahdo trading view inta hore waa bilaash laakiin markaad damacday inaad professional trader noqotid oo aad damacday inaad video wax la yiraahdo indicators badan iyo qalabyo badan isticmaashid lacag keen bay ku dhacayaan IML maxay ku diyaarisay surfaces sida kii free-ga ahaa iminka aan ku tusay la yiraahdo trading view oo kale ah oo iyagu ku sahlaya in aad lacag samaysid okay marka IML has a system that will allow you to become a professional forex trader IML wuxuu siinaysaa system aad adigu leedahay maaha system aad qayb ka noqonaysid maanta haddaa adigu company ka shaqaysid McDonald ka shaqaysid McDonald adigu ma lihid waa system diyaarsan baa qayb ka tahay wixii systemkaas uu qabaa la qabtaa laakiin kan system adigu leedahay baa lagu siinayaa which means inaad adigu madax isku tahay inaad adigu shaqaale isku tahay inaad office-ka dhan oo u baahan tahay computer-kaaga yahay sax marka saa u noqotay professional forex trader maxaa u baahan tahay waxaa u baahan tahay system inaad samaysatid sax in IML also maxaa samayn kartaa you can become an IPO and make monthly residual income maxaa soo samayn kartaa IML sidoo kale waxaad noqon kartaa waxa la yiraahdo independent business owner
taas oo ah qaybta networking-ka deetana aad samayn karto residual income balse waa wax optional ah maaha waxa ku khasban tahay daan markuu ku noqdo iMark Slave waa company Mareykan 2013 la asaasay adiga ku baraya inaad forex trading samaysid because waxaan ka soo sheekeynaa hadda suuqu inuu yahay buy and sell laakiin buy and sell ina iska gashin nasiib kuma xirna waxay ku xiran tahay skills iyo technical iyo xirfad waxaan u baahantahay inaad qof xirfadii ka baratid iMail maxay ku haysaa marka iMail product and service waa hortaada ka muuqda number 2 waxay ku haysaa waxa la iMark Slave Academy oo ah macluumaad waxbarasho oo runtii jaamacad ka qiimo badan waa wax ka badan boqolaal video oo step by step adiga ku fahamsiinaya sidii aad forex trading professional ugu noqon lahayd videoyadaasi 8 luqadood wax ka badan bay isku tarjumayaan haddii aad German ka taqaanid Chinese ka taqaanid Japanese ka taqaanid luqado kala duwan baa jira okay iMark Slave maxay kala ku haysaa waxa ku haysaa waxa iMark Slave TV oo ah TV wax ka badan 1000 saacadood oo live waxbarasho ah asbuuc kasta ka helaysid ina video wala duubay daawati waa sheeko gaar ah laakiin in qof live oo millionaire oo hor fadhiyo uu ku baro maanta waa jimce lacagta Mareykanka iska ilaali sababtoo ah waxaas laga yaabaa inay dhacaan khibradii buu leeyahay 10 sano wixii ku jiray dabcan anu waa wax yanfacaya xiranayna adiga ku anfacaya okay number 3 maxay shirkadu ku haysaa waxa ku haysaa harmonic scanner oo ah wax suuqii ku soo akhrinaya harmonic scanner waa tool ama software la diyaariyay oo ku siinaya waxa la yiraahdo trading styles ku siinaya ma noocaan aragtayna suuq u gashin ma noocaan arag suuq inoo gashin suuq hada masal bu jooga haduu sal joogo bayda ugu hooseyso gaari karo xagee taa ilaa bayda u sii raacay haduu bay joogana salka ugu soo sokay suuq gaari karo waa salkee ilaa salka u sii raacay maxaa la diidan yahay suuq diinin dheer kuma socdaa ku yiri marka maanta oo dhan iskiga ma jiri kadib bay maanta oo dhan iskiga ma jiri kadib sal meela u ka leexleexanaya jira waa in aad ogtahay simply waxa ku xiga wax la yiraahdo swipe traders oo isaguna ah waa application alla soo degaysid mobilkaaga oo aad gashanayso username-kaaga iyo password-kaaga iMail deetana ku sahlaya in uu ku soo diro signals waa maxay adoo guriga iska jooga mobilkaaga notification ba ku soo dhacaya dhow afiirinaysa waxa la leeyahay saacadan hadda la joogo lacagta Australian dollar Canadian dollar hadda gal numberka ka bax intaas oo bib ku gal very simple shaqada dhan waa lagu soo qabtay waxa jira wax la yiraahdo sidoo kale swing traders oo ah ama night owl waxa oo ah ninka shirkadda iska leh ama CEO-ga shirkadda iska leh Christopher Terry baa la 25 sano wax ka badan oo khibrada uu leeyahay habeen kasta oo ay isniin soo galayso live TV buu ku soo fariisanayaa soo adiga kaaga caawiyo in uu kula khriyo suuqi ka war maanta hadii lagu yiraahdo habeen kasta oo wax la yiraahdo adiga kubadda taageertaa waa laga soo qaad hadii lagu hor Sidaani baa magaalada imaanayo dadku maanta wuxuu barayaa sida kubadda loo ciyaaro 2 saacadood free ka soo qayb galaysa yes of course marka qofkii ugu fiicnaa ee suuqan ku jiray ba waxa u haysataa challenge habeen walba inuu asbuuca suuqa soo eekaanayo kula akhriyo ugu dambeyn shirkadu waxay ku haysaa waxa web analyzer oo ah software sida harmonic scanner kiyo kala ah laakiin ka casrisan web analyzer-ku waa toolka ugu muhiimsan ee maanta forex world la haysto qof walba oo forex trading ka shaqeeya ama iMail ha ku jira ama yuusan ku jirin waa tool u baahan yahay waa tool ku akhrinayo suuqii waa tool ku siinaya signal joogta 5 daqiiqo 15 daqiiqo 4 saacadood saacad runtii waana waxa aniga 100% ii xaqiijiyay in aan waxaan lacag ka sameyn karo marka hortaada hadda waxa ka muuqda 6 waxyaalood oo kamid ah waxyaalaha markaad business-kan aad bilowdid ama iMail aad ku biirtid as a customer as a macmiil ahaan laga gadayo ama aad helaysid waxaan ku yiri marka forex trading iyo iMail waa laba shay oo isku xiran waxa adigu doonaysaa inaad forex trading ka shaqaysatid laakiin adigu forex trading ma taqaanid maxaa u baahan tahay marka inta aad forex trading ka shaqaysan inaad baratid yaa ku baraya kumanaan shirkadood baa jira dad shacab baa jira Christopher Terry intuu waxaan bilaabin dadku wuxuu ka qaadi jiray halkii maalin oo lala kulmayo 10,000 $20,000 buu dadka qaadi jiray maanta wali waxa jira dad iyo Ingiriiska iyo Mareykanka jooga oo hal saac waqtigooda kamid ah $500 ka qaadaya inay forex trading ku baraan laakiin iMail waa product iyo service ku diyaarsan oo aad ku biiri kartid si aad forex trading uga guuleysatid okay marka how to get started iMail sidee baad iMail ku bilaabi kartaa haddii aad doonaysid in order for you to be part of iMail you have to register yourself as an active customer si aad iMail qayb uga noqotid waa inaad isku register garaysid ama isku diiwaan gelisid macmiil ahaan as a customer waa inaad tiraahdo iMail dhageysta waxaan doonayaa inaan waxyaalihiin aan isticmaalo software-kiin iyo tools-kiin isticmaalo waxaan doonayaa 100 video ee basic iyo advanced iyo intermediate inaan daawado waxaan doonayaa inaan live sessions-kiina ku xirmo oo dad yoga khatarta aan wax ka barto istiraatiijiyadooda ku dhaqmo waxaan doonayaa tiraahdo inaan harmonic scanner iyo swipe traders iyo web analyzer maalin kasta isticmaalo okay maxaa laga baahan yahay as a customer you have 2 platinum
options to choose laba option baad ugu soo biiri kartaa ama laba package baad gadan kartaa sidaba adduunka wax walba oo qiimo leh bilaash maaha wax walba oo qiimo leh lacag baa ka xigta waxa haddii aad maanta doonaysid inaad shay cajiib soo heshid waa inaad lacag u qortid haddii laakiin shay uu macaan lahayn meel kasta iska yaal haddaa maanta dabcdid inaad ubax aad abuurtid ubaxyada quruxda badan meel kasta kama baxan waa inaad si gaara u xanaanaysid biyo gaara ku shubtid ciid gaara ka abuurtid qorax loogu talagalay siisid waqti waa inuu kaa galo malabku maanta wax qiimo leh waa inaad waxa weeye aad habeenna u dhafartid oo aad raadisid shinnidii wixii hawshii martid maxaan ka wadaa wax walba oo qiimo leh waxay u baahan yihiin beerasho waxay u baahan yihiin inaad qurtid maalgashi marka laba wada midkood ugu biiri karaa platinum packageska kan koowaad waxa weeye $250 baad bixinaysaa $250 marka swipe trade iyo web analyzer baa kula socda packagekaaga always qofka waxa laga gadaya waxa weeye waa academygii iyo live tvgii harmonic scannerkii inta laga gadaya kadib $250 markaa bixisid waxa kula socda swipe trades iyo web analyzer oo haddii aad optionka labaad qaadatid iyagu ka maqan optionka labaad maxaa weeye waa $217 swipe trade iyo web analyzer kuguma jiraan waa inaad mid walba gaar u gadatid because swipe trade iyo web analyzer gaar inaad usoo gadatid bay kaaga baahan yihiin haddii aadan packageka oo dhan wada gadan marka warkiyo kooban haddii aad doonaysid inaad shantii surface iminka aan kasoo sheekeynay aad doonaysid inaad macmiil u noqotid marka hore waa inaad isdiiwaan gelisid saad isku diiwaan gelisid labadaa wada mid baa kuu furan minaa $250 hal mar isdhaafisid oo shanta surface ba kuu furmaan lixda surface ba sorry ay kuu furmaan ama in aad $217 kaliya bixisid oo afarta asaasiga ay kuu furmaan swap trades swing trade waxa weeye IML TV IML Academy iyo waxa la yiraahdo harmonic scanner shantaas ay kuu furmaan okay waa as a customer marka aad tahay waa garanay marka aad bishaada koowaad dhamaysid after your first month ends you have two options in order to stay with IML and keep using the products waxaan ka wadaa intaas bishaada koowaad markay dhamaato si aad IML uga sii mid ahaatid adeegyadana aad u sii isticmaashid laba wada midood baa kuu furan okay labada wadada koowaad waa maxay waa in aad bixisid lacag $145 oo subscription fee lacag billah oo $145 na bil kasta bixisid let's say maanta business ku biirtay markaa ku biirtay $250 baan bixiyay waxa weeye adeegyadii dhan baa information maalinta ku biiray bil markay ka soo wareegto waxa laga rabaa inaad subscription fee bixiyo ama waxa la siiyay scholarship waxa la siiyay wado kale oo ay bilaash ugu noqon karto service-kii maxaa weeye enroll two customers under your link and your service will be free laba qof oo sidaadoo kale doonaya inay forex trading ka shaqaystaan IML wax ka bartaan oo ku xirmaan sheekadan ku soo xir war hebel iyo heblaayo dhageysta sheekadan aan ku jiraay qayma ka tihiin ma doonaysan in qayb ka noqotanaa welcome xagee ka bilownaa IML qof meel cidla kama soo bilaabi karo waxa khasaba qof kasta oo IML bilaabay inuu qof kale ka soo maqlay laba qof oo adiga ka soo maqlay markay business ka bilaabaan adigu inta noloshaada ka dhiman labada qof ay joogaan free baad maxaa free u tahay inaad shantii service isticmaashid wax lacag ahna aan laga qaad marka nuxurku waxa weeye marka IML waxay ku haysaa shan service iminka soo sheekeynay waxay ka saacidaysaa inaad businesskii iminka aan ka soo hadalnay oo forex trading aad ku guuleysatid sa IML qayb uga noqotay marka hore waxaad ku register gareynaysaa lacagta inta leeg kadibna bil walba labada lacagood lacagta aad bixintaa $150 ama laba qof baad enroll gareynaysaa oo iyaguna sidaadii kale package-ka gata okay marka intaas haddii aad fahamtid waxa meeshan ku jira dhan ee loo digitam leeyahay ee la rabo inaad adiguna ogaato waxa weeye waxaan waa business sensitive waxa la aaminsan yahay 90% dadka forex-ka bilaaba inay ku guuldareystaan 90% dadka businesska forex-ka bilaaba ay ku guuldareystaan hal sabab oo mucayan ah sababtaasna waxay tahay qofkii ma uu haysto platform uu qayb ka noqdo maanta aniga platform ku soo celinaya maxaa laga wadaa iminka waa taqaanaan taxiga dunida ugu weyn waxa iska lahay shirkad la yiraahdo Uber wax hal gaari ma leh waana shirkadda taksiyada ee dunida ugu weyn laakiin ninka Uber sameeyay isagu hal gaari ma leh oo Uber ugu ma jiro Uber maxay sameeyay system bay sameeyay systemku waxa weeye waa platform abay dhistay platform bay sameeyay qof walba platformka qayb u qeeya maanta haddii aad taksiile caadi tahay iyo haddii aad Uber ku jidid waxa chance-kaaga guush badan yahay markaad Uber ku jidid let's say McDonald's waa maqaaxi Mareykanka laga leeyahay McDonald's sax waxa laga yaabaa reerkii Mareykanka iska lahaa 11 xabba kaliya inay leeyihiin reerkii McDonald's waa nin magaciisa 11 xabba bay ilmo McDonald's leeyihiin oo Mareykanka ku taala dunida daafeedana wax ka badan 20,000 oo McDonald's maanta ina anigu maqaaxi McDonald's furto ina maqaaxi caadi Abdul ku qorantaa furto waxa guusha u dhowahay marka mid McDonald's ka furto sababtu maxay tahay sababtu platform baa la sameeyay sababtu waxa la og yahay McDonald's system inay leedahay nidaamsan
everything website maanta dunida ugu weyn ee maalin kasta la booqdo ee maalin kasta wax lagu qoro waxa la dhahaa facebookna dadka iska leh ninka iska leh facebook isagu wax kuma soo qoro عشان دي marka profilkiisa laga reebo qof walba wax uu qorayo isagu uma u qoro muxuu isagu noo sameeyay platform inagoo dhan waa gal ina maanta website-yada kale laga arkay Facebook laga arkay fiican Facebook laga arko ayma waxba kama duwana platformskaas ina forex trading luuq ilaa ka soo gashid oo ku haboodid oo ku jahwareertid oo 3 bilood oo noloshaada kamid intay ka qaado hadhow aad ku khasaartid waxa ka fiican inaad platform la hubiyay la diyaariyay aad qayb ka ahaatid okay ayma marka waa intaas waxay ku aysaa platformkaas saddexdan video ee taxanaha waxaan ugu talagalay number 1 inaan kugu fahamsiiyo waxaan aan ka shaqeyno ee maalimaha dhan aamelaha ka maqmaqlaysid horta muxuu yahay forex trading number 2 nuxurkiisu muxuu duntiisu maxay tahay forex trading xagee salka ku haya waa maxay technical analysis waa maxay fundamental analysis sidee suuqa loo sameeyaa sidee wax looga faa'iidaa number 3 oo ugu muhiimsan maxaa weeye si aad suuqan ugu guuleysatid xagee baad u raadsataa caawimaad xagee baad u raadsataa garabgal xagee baad u raadsataa waxa weeye cid ku saacida وانا ايمن marka iMarket Live waa company la tijaabiyay waa company ka shaqeeya 120 dal waa company ay dad maalin kasta millions ka sameeyaan muhiim kuma arka adigu inaad ku biirto ama aad ku soo biiri weydid ee waxa muhiimka ah waxa way adigu ma doonaysaa inaad forex trading ku guuleystid hadii jawaabtaadu waxa tahay waxa ku khasban tahay in aad qayb ka noqotid system hatta yuusan iMan noqon wuxuu doonaa noqon ilaa ma qof raadisid qof trader او 10 sano waxaan ku dhex jiray waa inaan ku xiran tahay laakiin hadaa tiraahdo YouTube aan video yar ka daawanaya waxa la yiraahdaa meel heblaayaan tagaya oo qof aan cabaar dhageysanaya kadibna forex trading baan ugu isbaraya macquul ma wado yiraahdo waxaan la tartamayaa waa dheerayaa iyo waagan yaraaba ordi jiray waxaan la tartamayaa Usain Bolt baan Olympic la tartamaya macquul ma noqonayso habaas ku siinaya ama adoo waxa way waaga yareed ku bedeli jirnaa tiraahdo Real Madrid baan u dheelayaa macquul ma noqonayso حاول marka nuxurka sheekadeedu hadii aad waxaan doonaysid inaad ku guuleystid waxa u baahan tahay platform qayb ka ahaatid presentationka IML lagu sheegay wax balaa laga dhigin waxa laga gaday waa surfaceskaas waa shanta surface hadii aad doonaysid shanta surface inaad isticmaashina markaad ku biirtid kadib labada wada ku furo arjeenaya fiidiyodan inay wax ku kordhiyeen arjeenaya adiga iyo teamkaaga inay ku anfici doonaan insha Allah taxanaha noocaan oo wadi doonaa maanta saddexdan fiidiyo 3 saacadood gudahood baan duubay si teamkeena ay u caawiso dhammaan dadka Soomaaliyeed ee luqadda aan ku hadlayo fahmayana ay ugu yaraan uga helaan fikir waxaan aan ka shaqeynaa waxa uu yahay salaam ya dhamaantiin waxaan noo ballan insha Allah fiidiyo badan oo ka sheekeyn doona forex trading iyo waxa ay tahay iyo iMarket Live iyo muhiimadda ay leedahay intaba